ilaahay baa ku mahadsan mar kale isku keenay annagoo caafimaad qabna. Waxaan u maleynayaa 20kii bishii hadda dhamaatay ayaa isku keen dambeysay. Markaas oo ahayd waqtiga soo gabagabeynay kooraska aan dhiganaynay muddada bisha ah oo ku saabsanaa sida loo sameeyo muuqaalada iyo waxyaabo badan oo la xiriira muuqaal duubista sida ruliskooda iyo maaragtay hagaajinta maaragtay qalabka aad isticmaalaysid sidii waxyaabo la midka ahaa oo dhammaan qaybtuna ay practical ahayd qaybna ay theory ahayd iskugu jirtay. sidoo kale waxaan rabaa in aad ugu mahadceliyo qof walba oo dutieskii ama waajibaadkii shaqo oo markii koorasku socday la soo bandhigayay siday ahayd uga qayb qaatay. inkastoo la kale iska horsaray haddana kulligiin aad ugu fiicneedeen kulley aragti ahaan waana shaqo fiican baa qabateen runtii marka la sheego. koos dad badan oo waxa jiray 90% ardayda waxay ahaayeen dad ay markaas ugu horeysay waxa haddana saasay tahay waxa arkay wax cajiib ah qaybtooda anigoo aanan still dhammaynin kooraska bay maaragtay sameynayeen wax la yiraahdo almost waxyaabo aan soo waday si sameynaya. marka waxay ku tusinaysaa baahida ay u qabeen inay waxaan wax ka ogaadaan iyo dadaalka ku jira. taas marka inta uga tago waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo xarunta T-Hub oo ayadu barnaamijkan fududeysay ahaydna sababta maaragtay isku keentay annaga iyo idinka. runtiina marar badan u faa'iideysa dhalinyarada waxyaabo badan oo ku saabsan sidii ay noloshooda xirfad ugu sameyn lahaayeen. waana baahi hadda magaalada marka la eego si fiican aad uga jirto oo dhalinyarada ay dareemayso. laakiin bilow fiican weeye runtii. waxaan rajeynayaa kolley in intaas ka sii badanna ay maaragtay ku sii dadaali doonaan inay ka caawiyaan dhalinyarada. marka inahaas anigu kusoo gabagabeynayaa waan isla joognaa waa mahadsantihiin.